السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا ku xidhan channelka dadweynaha ee YouTube barnaamijkeena maantana waxaan ku soo qaadan doonaa xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan caalamka isla markaana laga yaababa inaad maanta ka hor maqal daawasho wacan barnaamijku dhameystiran ku xidhnow channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir heesta qaranka ee dalka Spain kuma jiraan haba yaraatee wax erey ah ciidda ay reer galbeedka ku magacaabaan maalinta jacaylka sida loo ogyahay wadamada badankooda ragga ayaa dumarka u geeya maalintaasi hadiyado xagga dalka Japan midaasi cagsigeeda ay dumarku ragga u geeyaan maalintaasi hadiyado xaashad waliba uu sameeysan hab isku weera suurtagal ma aha inaad isku laabto in ka badan 8 jeer si kastay u weynaatay si kastay u yaraataba adiga laftaadu haatan waa tijaabin kartaa arrinkaasi xayawaankani loo yaqaano jellyfish guud ahaan dunida inta loo ogyahay waa noolaha kaliya ee biology ahaan ay suurtagal u tahay waaridu yacni waxa uu awoodi karaa in uu weligii noolaado iyada oo ay arrintaasi suurtagal u noqonayso haddii uu raaco hal wadadaasi oo ah haddii uu cuno kalluunka fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Shakira bariga yareed macalinkeedii dugsiga fanka iyo suugaanta ayaa dugsiga ka eriyay iyadoo isla markaana arrinkaasi uu ugu sababeeyay inuu codkeedu u eegyahay codka adhiga oo kale magaca waddanka Spain amba Hispania ayaa waxa laga soo dhambalay ereyga Hispania oo ay micnaheedu tahay dhulkii bakaylayaasha gabadhan oo lagu magacaabo Maryam Nabatanzi oo ka soo jeeda dalka Uganda ayaa waxa ay dhashay caruur ay tiradoodu ka badan yihiin tirada da'deeda ayaa ah 40 jir xagga tirada caruurteeduna ay yihiin 44 ciyaal daraasado la sameeyay ayaa waxa lagu xaqiijiyay in unugyada maskaxda bisaduhu ay dareen wadaagaan badka birlabta dhulka amba Earth's magnetic field taasi oo micnaheedu tahay meel kasta oo dunida la geeyo in ay awood u yeelan karto in ay toos uga soo laabato gurigii ay ku nooleed arrintan ayaa waxay xasuusisay dhacdo aan hadda ka hor goobjoog ahaa waxaan xasuustaa muddo haatan laga joogo ku dhawaad 9 mise 8 sano ayaa waxaan darisahayn gabadh xaas ah oo haysatay 2 caruur sidoo kale gabadhan ayaa waxa ay dhaqatay oo lahayd digaagado iyo sidoo kale bisad amba curri ay yaraantiisii korsatay haddaba currigii markuu weynaaday ayuu gabadhan nafta u keenay waxaa bilaabay inuu ku hoos cuno beedka amba ukunta iyo waliba digaagadaha yaryar haddaba arrintan ayaa gabadha waxa ay ku kaliftay inay curriga giddigiisaba qaado soo fogeyso si uu dib ugu soo laaban si fiican baan u xasuustaa giddigiisaba intay qabatay ayaa waxa ay ku riday baxdii ay daqiiqda ka dhamaysay markaasay ku dhawaad 3 saac la sii lugaysay waxa ayna geysay oo ku sii daysay meel buura ah wayna isaga soo laabatay iyadoo isla markaana isla hadeed khalaas waad ka raysatay hase ahaatee arrinta la yaab ka lahayd gabadhii markay guriga timid waxayba ugu timid isagoo kaba soo horeeyo guriga sii jooga gabadhii ayaa yaabtay shaydaanka iska naartay oo tiri a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim wuxuu majin baa soo guriga ku soo gartay balse dhibaatadii currigani intaasi kuma haysan ekaan cunidii uu ka cunay digaagadaha iyo beedkeeda ayaa libilaab noqotay ilaa uu haaf ka cunay wixii ay digaagada haysatay intaasi kadib gabadhii ayaa waxa ay go'aansatay mar kale inay qaato currigan oo ka fogeyso intii maalintii hore ma aqaan inay la lugaysay inay gaadhi la raacday kaliya waxaan xasuustaa inay subax hore la baxday oo soo laabatay habeennimadii hase ahaatee baradan sidii hore way ka gadisanayd sidoo kale waa uu soo laabtay walibana waa uu ka soo horeeyay intaasi kuma uusan ekaan illeen waa uu soo daalo soo gaajoode waxa uu ka sii cunay digaagada kale gabadhii ayaa xanaaq cirka tagtay ciil waxa ay samaysay garan weeday qaadatiisina way iska dayso waxay ogaatay meel kasta geeyso inuu ka soo laabanayo maalmaha ka soo wareegay arrintii isna hawshiisii waxba kama uusan bedelin sidii inbuu uga hoos cunayay hase ahaatee isbuuc kadib waxa dhacday mid ka mid ah dhacdooyinkii nolosheeda ugu la yaab ka badnaa in arkay maalin subax ay xilli hore ahayd ayaa waxa ay soo qabatay bisadii dibadda ayay ula baxday deetana waxa ay ku xidhay geed xoogay waan ka yar dheeraa anigii wiil kale ayaa sheeda ka arkaynay anagoo isweydiinno isla talo maxay u xidhaysaa ayaa hal mar waxay hoosta kala soo baxday bud weyn oo garawaay meel ka soo saartay budkii ayaa ku bilowday bisadii currigii ayaa waxa uu bilaabay dhawaaq walibana meel kale kuma aysan dhufanin madaxa ayay ku dhufanaysay wuu booda xariga ayaa soo qabta madaxa ayay ku dhufatay aniga inankii ayaa ku soo yaacanay hase ahaatee markay 5 mise 4 jeer madaxa kaga dhufatay bahalkii waa u dhacay waa una dhintay ayadoo isla markaana afkiisa dhiig fara badan ka bixeen runtii dhacdadaasi arrin cajiib ah ayagu noqotay ficilka ay sameysana aniga shakhsi ahaan wuxuu ilaahaa mid qaldan xagga iyada markaan weydiiyay waa xayawaan miskiin ah oo wax ma garatee maxaad u dishay ay igu jawaabtay dhibaatadu i gaarsiiyey ayaa iga badan dhibaatadan anigu gaarsiiyey arrinkaasi dhinac marka laga fiiriyo waxa la is oran karaa way ku saxsanayd haddaba adiga ra'yi ahaantaada haddii arrintan oo kale kugu dhacdo sideed u xallin lahayd ilaan meel kasteed geysana wuu kugu soo laabanayaa kumina nabadgelinayo digaagadii yaryaraa iyo beedkiibu kaa soconayaa sideed ku xallin lahayd miyaad dili lahayd sideedoo kale mise waxaad la iman lahayd fikir kale oo ka gedisan
fikirkaaga bal dhinaca hoose commentiga ku xariiq barnaamijkeena maantuna intaasi ayuu ku egyahay intaynu barnaamijyo dambe suguman doonaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ku xidhnow janalka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir